hooyadeydii anigay dhashay ayaan ku afceliyaa nin kule gabadhaydu mobilkay ka shakisan tahay mobilkay ka shakisan ma u dhiib hayawaakan hoodhe tafadal bismillah hayso waka furihiisu waa 122 hayso uga tag maxaad qarinaysaa haddaad wax qariso ogow inuu incikaas jiro waxaad arkaysaa nin oranaya gabadhaydu erey iguma soo celiso haddaad marka leedahay gabadhaydu kelmad iguma soo celiso ogow way ka baqaysaa way kugu soo celin lahayd kelmad iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lixda way kugu soo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل جوعنا وناكسن سيتهين في عنتهين عافماتكين كورة محاحسة هاي جايز حمد واي سيتهين في عنتهين عافماتكين كورة ما لويتو ayaan wiil Soomaaliyeed bas kula kulmay wuxuu yiraahday waan ku kasaaya amar wuxuu fi cantahay waan waxaan alxamdulillah seetan baa wuxuu yiri walaalo waxaan ka daawanay YouTube-kaada wiil badan oo bas leeyta kaasiliya ku daawado dhiirigelintaada waan jecel lahay gabar Friida hataa ma sha Allah laakiin wuxuu yiri hey gabdho aad tiraahdaa marka waxa lagu maleeyaa u dhahay oo rag wuxuu rix ka haysta calaamad inaad tahay dumarka kaliya ma taqaan u dooda markaan ku dhageysan wuxuu dhahay dhiirigelintaadu meel fiican ay ku socotaa marka waxaan ka codsanaa ugu yiri mar waxooy inaad sida isku dhaantid oo marka channelka soo galaysa aad tiraahdo hi guys soo wuxuu meel badan aan ka daawana laakiin dumarka feminism ma laha waxa wuxuu dhahay lagu maleeyaa marka wuxuu dhahay hore wuxuu wasaka wuxuu ka booji laakiin hadda wuxuu dhahay routine anta ka dhigta ka iska armaala muringaha wuxuu dhahay kula socda laakiin hay gabdho dambeeyaan ka maqlay walaal inta kugula taliyay waxa wanaagsanaa ka hadasha laakiin dumar rag waxay kaaga cararayaan waxa way isleen qoftan dumar kale wuxuu sheegtaa waxaan ku rihayo walaalo waa tala fiican channelka waxbaad ka leeyihiin channelkan uu kaligay milihi diyaar baa ay walaalo sorry haddana waa kana hay gabdho meel kasta la taagna shil ka sheegay snapki waxaan ku dhaw walaalayaal waxa ma soconayso dee وإنا واحد يحكي بدلو ناوين بارهاي شيء كذا مصر عنيس كوري مركا أنت سنوا أنت حنكون رتينا إن العافيمات قبتي فصح وناكس إنه كجرت أنا عمل قرح يربى نص وبحذا قف يربجو وفق له فرح سادات قرح بنان كجرت حتى وإذا كاسا ما هي سان ورك سيا وحنكا عدسنا يعني مقالك إلا قريت شنك سبسكرايب قريت مقالك يجنك يا معلومها ما حكوا سو بدي رجلين توايو waxaa la yiri god iyo ninka loo wada lama kala qariyo meel baan u socdaa hami baan leeyahay hadaf baan leeyahay channelkayga hadii uu blog gaara iyo haduu views fiican hela iyo haduu views badan hela channelkayga waa inuu wax murtila oo ku helo sidiisa bilaadin guri bil lagu dhisay iyo guri sanado lagu dhisay isku meel ma maraan marka dadka soo hari doono waa dadka reeliga routiinadeeda labiska skincare-ka iyo talooyinka rabo انت ما تقانا شيك سكريبتنا channel بدنا شيكadu camirnaa jir way aadi doona insha Allah taala hadana waxaan leeyahay muuqaalka ila garay channelkan iyo subscribe maanta waxaan arkay adeerkan ama maleeyo sheekh Soomaaliyeed yahay oo aan aad ula dhacay fikrado badan oo aniga iga dhex guuxayana aan arkay halkiisa ayaa waxaan rabaa inaan bal in la wadaago oo adunkuna aad ila aragtaan kabacdina fikrada aniga igu jiray oo anigu aan heystay oo jeclaa inaan ka hadlo horana mar muuqaalkayga ugu soo diray aan ka hadlo fikradahaas oo in ma taqaana ragga Soomaaliyeed Ilaahay hanoo daayay ay ku leeyihiin waxaan rabaa gabar aan wari u soo celinaynin aniga xaaskay igama daba hadasho tilaaba aan rabin xaaskaygu ma qaado aniga ma taqaana gabadheedu waa raaliyo ma raaliyanimay ka tahay ma sabaqitaan ay ninkeeda ka baqaysay ka tahay taas ay maanta sila qaada dhigeena anagoo waxna xiirinayna wixii u jiraan u sheegin laakiin horta marka hore ayaan ka hor dhicinay bal sheeqan ila arag wuxuu sheegay arkaysa nin kule gabadhaydu mobilkay ka shakisan tahay mobilkay ka shakisan ma u dhiib hayawaakan hoodhe tafadal bismillah hayso waka furihiisu waa 122 hayso uga tag maxaad qarinaysaa haddaad wax qariso ogow inuu incikaas jiro waxaad arkaysaa nin oranaya gabadhaydu erey iguma soo celiso haddaad marka leedahay gabadhaydu kelmad iguma soo celiso ogow way ka baqaysaa way kugu soo celin lahayd kelmad iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lixda way kugu soo celinaysaa waxay kugu soo celin lahayd ma garanaysaa way ka baqaysaa dictator istibdaadiya tahay waa inay ku baarik calayna qoyska waxa imtizaaj isdhaxgalka la yiraahdo imtizaaj muzaawaja waa xalayada zawjiyada waa isdhaxgal waa inay labadii ruux noqdeen labadii ruux hal qof noqdeen waxaad arkaysaa nin kule gabadhaydu mobilkay ka shakisan tahay mobilkay ka shakisan ma u dhiib hayawaakan hoodhe tafadal bismillah hayso hayso waka furihiisu waa 122 hayso uga tag maxaad qarinaysaa waxaan rajeynaa inaad aragteen ugu horeedan u riyaaqay familadeena Soomaaliyeed
waxyaalaha dhibo oo guryo badan oo Soomaaliyeed kadeeda waxaa kamid ah kalsooni la'aan. waxaa kamid ah inuu ninkii gabadhi taleefankii musqusha la galaayo markuu taleefanku soo dhaco silent saarayo banaanka ula baxaayo. waxaa mataqaanaa kalsooni la'aanta keenaya inuu ninkii kilkisha taleefon ku wato inuu musqusha la galaayo inuu ka qarinayo. halkaasna wiilalo waxaa ka imaanaysa kalsooni darro. xaaskaaga horta waxa aad ka qarinayso naag maaha. gabar maanta waxa aad ka qarinayso waa gabar kale. adiga gabadhiisu ilaahay kuma banayn. Allah subxaanahu wa tacaala ee annagana abuurtay kuma uusan banaynin inaad qarqarisaaba qalada. ilaaha kuu baneeyay xaaskaaga la fariiso. waxaan rabaa inaan xaas kala yeesho. waxaan damcay inaan gabar kale la haasaabo. waxaan rabaa inaan guursado. haddii ay kugu rabtana ha kugula joogto, haddii kalena ha kaa tagto. laakiin nolosha la yiraahdo ha dhiman ha geeridan oo adiga wax ilaahay kuu baneeyay qarinayo haddaadan awooddaas iyo kartidaas iyo mas-uuliyaddaas aadan balahaynba gabadha guriga kuu joogtana walwal iyo stress ha ku abuurin oo dhibaato badan ha u geysanin. ilmahaaga yararkaana fadqallaha ku abuurin oo hooyadu ha ka dhibaateynin. waayo waxa aad la dhuumanaysa waa wax Allah subxaanahu wa tacaala kuu sameeyay. ilaahayna amaradiisa iyo go'aamadiisa wallahi bari waxa jirta dhihi jiro hadda kama soo waayo Allah subxaanahu wa tacaala wax kastuu sameeyay maslaxa iyo wanaaga loogu jira rag iyo dumarba. marka gabadhaani ama way kugula joogay ama way kaa tegay, laakiin wareerka iyo family problemka iyo isfaham la'aanta iyo dhibaatooyin guryaha ka jira irsaaqad la'aan iyo xanuuna laga qaadaa wax wanaagsan maaha. taasta mobilkan ka dhig gabadha waxa aad ka qaray waa inaad gabar qeyrkeeda la hadashay. mobilkaaga halkaas dhig, xaaskaaga wax kasta la wadaag, kalsooni dareensiya xaaskaaga siday kurba la'aan caruurta kuugu koriso ay gurigana kuugu nadiifiso, kuuguna dhaqdo, ubadkana kuugu koriso, cuntadana kuugu kariso, adiguna aad ayadu ixtiraamtid, isjeclaataan. ixtiraam haday wax baray deganaa wax ku barato, haday wax kare wax u deganaa wax ku kariyo, wax nadiifay deganaa wax ku nadiifiso. xaaskaada kalsoonidaas geli. waxa aad la dhuumay in rago waa wax Allah subxaanahu wa tacaala kuu baneeyay. amarka ilaahayna muxuu sidiisa bini aadan waa wanaagsan. furiinku waa amri ilaahay, qabninku waa amri ilaahay, guurku waa amri kulli waa wax Allah subxaanahu wa tacaala amar maslaxadeena ku jirta. marka waxba la ka dhuuman mobilkan aad la qarqarinaysiin meelaha iska dhiga waa sidoo sheeku sheegay. tan kale aniga xaaskay warigu ma soo celido ama waxaan rabaa gabaraan iga daba hadlaynin micnaheedu waxay tahay waxaan rabaa qof aan abiyiso. qof bili aadan oo aragti iyo afti lahayn dunida ma jooga. qofka bili aadanka oo aragti buu leeyahay, go'aamo buu leeyahay, mataqaana dhiig dhaqaaqo leeyahay, wax diiriyo leeyahay. gabadhan adigu guriga kuu joogtaa inaysan qalad iyo saxba aysan hadal kugu soo celin micnaheedu maaha inay raaliyo tahay, micnaheeduna maaha inay ku jeceshahay, micnaheeduna maaha saas inuu dhalatay. laakiin adiga ay ka baqaysaa jacjacuur baa tahay, noloshiya adiga kaaga xiran inay ku dhageysataysan war kugu soo celinin nolosheeda ku xiran. laakiin maalinta ay gabadhaasi fikrad yeelato ayadoona xataa ku khilaafayna oo lees dagaalin lees caynaynin inay ku tiraa walaa xaaji aniga waxaan ila mastaxno ama aniga waxaan ila ma fiicno, gabadhaas waa gabar xora. inay gabadha gurigeeda ee waxay awooda ka sadaqaysto waa wax wanaagsan, inay martideeda soorto waa wax wanaagsan. qofkan asagoo xirxiran guriga kuma soo aruursan. laakiin rag dhan waxa ay dhahayaan galaas biya igama bixi karta, xaaskaygu galaas biya igama bixiso, xaaskaygu hadal iguma soo celiso, xaaskaygu igama daba hadasho. macnaheedu maahan xaaskaagu inay raaliyanimo taas lama yiraahdo. raaliyanimadu goormay timaadaa? raaliyanimadu waxay imaataa wada sinaanta iyo isfahamkay ku timaadaa. raaliyanimadu kuma timaado isku teegsanaanta oo qof kasta qof kale ku tiirsanya. haddii maanta adigu aad gacan hooseed inay xaaskaadu kugu tiirsanaato nin wanaagsan kuma tii kugu taagsato. laakiin raaliyanimadu iyo isfahamku iyo isjaceylku wuxuu imaadaan labada qof markay aragti wadaag yihiin, markay fikir wadaag yihiin, markay wax isku darsadaan ayay noqda. laakiin inan rago ma aha raaliyanimadu inaad gabadhan yartaa oo Afrika kusoo guurta $200 aad siidid wallahi ay ogtahan haddii maanta furtina caruurta ka reebanaysid ay ku fakarayso hooyadaadi ku soo koraysa dhibka aad dhibkan kula noqonaysaa. ay gobolkood ku fakarayaad ku noqonay hooyo aabad malihide, gobolkood ay ku fakaray caruurtaada miyaad dhigi kartaa. taasi walaalo ma aha ixtiraam, mana ahan jacayl, mana aha raaliyanimo. الله يقليك دمرك ونحريستا إليها إني شرفية دمرك ونحريستا نحريستا يستعيلك اللي قوشيغا فكر وذاك يوكي بعدا قبلنا أتسوق قورستي واني وحنا ديدا وحنا يشا مركا شيطان آد إيه هذا الكيس والرياقي
raalliyanimadu isduleen maahan ee raalliyanimadu waa wax bilaa sharuud ku yimid raalliyanimadu waa inay sharuud la'aan ku timaadaa waa inay xaaskaagu agtaada ku dareentaa tiriikheed waa inay xaaskaagu agtaada ku dareentaa kalsooni waa inay xaaskaagu agtaada ku dareentaa awood hooyadeydii anigay dhashay ayaan ku afceliyaa ilaa waxaan ma awoodo seen anigu markaan wiil aan maanta soo guursaday aan dhihi kara wax hooyadayaan beena wallahi bilaa talaa ma sameeynayo wallahi bilaa talaa ma yeeli karo wallahi bilaa talaa ma raba inaan sameeyo hooyadayaan seen marka adigu aniga isoo guursado guri ku aan ku dhihi weynaa macnaheedu waxay tahay inaad adigu madaxa iiga taagan tahay aanan ogahay inaan ku qasbanahay inaan kula noolaado taas waay marka sheekha hadalkiisa aada uga haray jacjacurnimada iska dhaafa xaaskaagu yeysan kaa baqin yeysan kaa nixin gabaray aduguna odagaaga haddii aad ka gacan sareediyousan kaa nixin ha dulaysanina wiilasha wadamada aad keenteen marka waxaa jira gabdho badan ayaga laftirkoodu wadamadan jooga ama wadanka joogaan inta niman soo guursada keena ee wiilkii markuu saa sharci u qaato u tago maxaa keena mataqaaneen waa isku taagnaashaha sideena bili aadinimo annagoonan isku taagnaan nin iyo naagba annagoonan is adoonsan war haddii waalidnimadii cunuga hooyaan ku ahay qasab igu adeec la leeyahay war haddii wiilka uu gabadhi markuu gacan sareeyo uu leeyahay aragti iyo afti ugu madarsan kartid war hadday gabadhi hadda iduu wiilka gacan sareeyso ay gumaysanayso soo xanuun ma jacaylku waa kasbasho waa naxariis sida ubaxaas biyaha ugu koro biyuhu u bixiyaan waa inuu jaceylku u baxaa isfuulfuulid iyo isqaqabsasho iyo isku riix iyo qofkaan dhibitaan iyo iswaalwaali iyo jaceylku ma yimaado qofkaan ha fuulfuulin korka ha ka fuulin ha dhibin ha riixriicin ha kadeedin ka deg oo ha kaa nasto halkaas hadalkayga fuulfuulid uga jeedaa meel kale ulayaa loo wadin dadka u dhib badan yihiin soo markaa sheeqan aada una dhacay gabar iyo wiilna waxaan ku waaninayaa walaalo jaceylku maaha is adoonsaso walaalo jaceylku maaha is qabasho ha u arkin xaaskaagu des hadalkuugu soo celinay ku jeceshaha wallaahi inaysan ku jeclayn maalintii jaanis yar heshana waa ku dhammaad naagaha yurub markay tagaan way kibraan waxa loo leeyahay xitaa dee walaala gabdhihii afkiya sagsaag looga tolay waxba kuguma celi karto aragti male xataa ilmaheeda iyadoo ay dhashay ayaysan masuulkeen 9 biloodii koriday way dhashay aragti kuma leh naag guriga naag baad ka tahay ka aamusay ilmahan aabahooda u taliyaan maqle oo aabaayo hooyada yaa ilmaha tiladooda leh aabuhu leeyahay wuu ogahay laakiin hooyadu waxay ku leedahay ma fahantay ayaga koridoo dhashay marka gabadhan ee gurigeedii marti ka ah way xanuun badan tahay marka Allah subhanahu wa ta'ala u laabta waxyaalo badan ogahay waxyaalo badan oo dhacaan arka waxyaalo badan maqlay ma jecel familada Soomaalida inay waxooda fogfogo ma jecel wallahi gabdhaha WhatsApp-ka aan kula hadlo waa la ooyaa waa waaniya samra iraada ku aan samri karna waxa iraada ilaahay waxaan kaaga bari heer waxaan gaar gabdhaha ira salaatul leyl duko abay alla gacmaha u taag ilaahay sida qeyr ku waafajina ilaa uu gabdhihi ma dhihi karo gurigeena dumiya waxyaalaha gabana wax lagu noolaa kara ma aha gabdhu ku sheegayaan ragna waa isoo wacan ayaguna ilaahay uga baqa guurka مسؤولية الله وبقى ويلك المها كان الاحترام وحكو دعوة ملهي أدوغنا هويدود احترام ولا له معانا إن شاء الله تعالى هذا إسقطان إسفهم هذا إسبرتان إسفهم وقت كستان إسكون حريصتا هذا مقالك اللي كان كسوق بقوينا محمد من الدكتورة كله أنت مقالك مقال كل من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.